warqad yar bay soo qoraan ingiriisi ku qoraan ingiriis baa inuu qariban yahay marka waxaan leenahay waxaas wax ummadda ka shaqeynaya maaha filimkaana hore loo soo daawaday laakiin waxaan leeyahay oo shacbiga reer Soomaaliland ku goobaabinaya walaalayaal mid baynu nahay min bari ilaa galbeed halka ugu sareysay ilaa halka ugu dambaysa yaan layna kala qaybin rag baa xoqaya wixiina soo maray halkii ayna soo martay 94kii baa la xoqayaa waxa dad lagu xasuuqay oo dhibaato loogu geystay waa federal tiiba maantana la wadaa waa raggii waday waxaanu leenahay walaal maanta shaqayn mayso burcad maanta taa ka tiri 94kii baad Hargeysa ka samaysay dibtii ummadan soo gaadhay ilaa maanta way ku taala dadku uu ka aamusan yahay lagana mana hadlo taariikh madoobe ummadda Soomaaliland ku leedahay wixii waxa dhigayna waa loo yahay maantana burcad la tagtay burca waanu midaynay burca way midaysan tahay la isku diri kari maayo Soomaaliland la isku diri maayo ma rabo inaanu dib u qaxno ma rabno inaanu ku noqono kaamamkii shacbiga reer Soomaaliland wuu midoobay dagaal uu ka xoroobay askari dagaal wada diyaaru ma nihin cidina dooran mayso waxaanu leenahay walaalayaal waanu ka weynaanay waanu ka horaan u maray xisbiga wadani waa xisbiga maanta idin madaynaya waa xisbigii nabadda waxaanu kala dooraynaa nabad iyo colaad waxaanu kala dooraynaa qaxooti iyo horumar walaalayaal waxaanu leenahay halka la xoqayaa ma aha xamar baa la tagayaa waa dib kale laakiin shacbiga reer Soomaaliland uu ka waantoobay midka reera maanta Soomaaliland oo dib loogu duulayaa ma jirto dad lagu xoqayaa ma jirto federal bay yihiin waynu aragnay wixii federal inaga soo gaaray walaalayaal waxaanu idin leenahay sheekadaas waa sheeko jaban waxaanu leenahay aqoon darra wada waa kii Ismaaciil halka ka sheegay beesha caalamka waxaanu maanta ku nidaahnaa Soomaaliland baa dejin karta regionka iyo geeska Afrika nabad baanu keenay horumar baanu keenay taasaanu iibinaa waana loo baahan yahay xamar waa arkaysan waxa ka dhacaya xamar inay tani noqoto ma rabno waxaanu leenahay walaalayaal ninka maanta ku faanaya ee federal cisku cambaaraynaya ee cid gaara u jeeda shaqayn mayso filimka hore lagaaga dhageystay kuna maqli mayno mar labaad waa mahadsantihiin aad baan idinku mahadnaqayaa beenta jaban ee raqiiska ee la isku dhabdhabay waxba ka dhageysanina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh